maxay tahay sababta labadan nin ay sheekadoodu iskugu eg tahay ama isku midka u tahay ninkan Omar wuxuu leeyahay fanaanin ayaa dhibaateeyay iyo dad ii dhow ninkan kalena wuxuu leeyahay asxaabtayda aan ceeshka wadaagnay iyo naagtaydii aan qabay ayaa dhibaateeyay ninka hal maran ka daba geeyo ninkani waa nin YouTuber ah oo mara Jarmalka laga yaqaano oo 1 milyan kor u dhaafay oo dadka aad u caawin jiray maalintu banaanka u baxo ayuu dadka wax siin jiray laakiin hadda sida uu noqday iyo sidoo ahaan jiray farqi weyn baa u dhaxeeya ninkan sidoo diinta ugu adkaa waxyaabaha qaar uga soo horjeedi jiray uu hal mar isku bedelay waxyaabii uu ka soo horjeedi jiray waxyaabii uu diidanaan jiray oo oran jiray waxaas ma fiicno ayuu noqday isagii caruurtii uu dhalay ayuu caynayaa naagtiisii wuu caynayaa iyadoo waan fahmi karaa manaa sababtu uu caynaayo oo manaa wuxuu leeyahay naagtii aan qabay ayaa mid aan saaxiib nahay oo manaa waliba aan best friend nahay la seexatay marka iyadoo waan dareemi karaa sababtu la caynaayo oo manaa nin hadii naagtiisa la seexdo uu ka xanaaq baa sheeday dadka qaar ku waashaanba dadka qaar ku wareeraan dadka qaar stress baa ku dhaca moogtahay soo marka iyadoo waan fahmi karaa sababtu uu caynaayo laakiin macal caruurtu dhalay ayuu cayda ku daray ninkan uu leeyahay naagteedu ii daba maray waa raabar oo mala waxa laga yaqaan dadka Jarmalka wajigiisa uu qarsadaa naagta loo daba marayna sidoo kale wajigeeda way qarsataayo iyaduna ma jeclo markay banaanka marayso in la ogaado inay tahay naagtii uu YouTuber ku qabay soo markaa wajigeeda caadi ahaan iska qarsataa ninkan raabarkuna markuu heesayo wajigiisa uu qarsadaa oo manaa mask uu xuleeyahay ama saan buu leeyahay marka labadan isqarinaya ayaa isku tagay oo manaa ka dambeeyay ninkan wareerkiisa ama waalidiisa manaa waxa ku dhacay ma garan karnay adigu waxaan ku tilmaamayna laakiin ma oran karo waalan yahay ma oran karo manaa xanuunsanaya ma oran karo uu wareeray ma oran karo stress baa ku dhacay oo manaa xanuun kuma sheegi karo laakiin adu iyaga sabab u ah in uu sida uu hadda yahay noqdo isagoo wiil wanaagsan ahaan jiray ninkan macal heer waxa la gaarsiiyay isagoo live ku jira in uu dhaho diinta islaamka waan ka baxay oo manaa anu waa idin daayay taas hadii naagtii aan qabay ee muslimka ila sheeganaysay ay nin kale ii daba marayso diinta waa uga baxaano oo ninkan intuu baxay wada tattoos ka dhigay ayuu haddana tattoo kale gacanta ku sawirtay tattoodaasi waxay sheegaysaa ama waxay ka turjumaysaa diin ay haysan jireen Turkidu ka hor diinta islaamka oo la yiraahdo Tangerismus adu saan ugu dhawaaqaynay qalad laga yaabaa muhiimadu waxa weeyaan diin aanan diinteena caadiga ah ee saxda aan ahayn uu gacanta ku sawirtay sidoo kale ninkani wuxuu rabo uu ka hadlayaa fiidiyal buu soo dhigayaa live buu soo galayaa sidoo doon uu hadlayaa dadku rabo ka hadlayaa wuxuu leeyahay booliis baa raadsanaya iyo Interpol waxa sare runtahay inay been tahayna lama garanayo marka aanu waxyaabahan dadkan haysta garanaayo oo macnaha ma dhihi karo way xanuunsanayaan stress baa haysta waa la sirxay magac uma bixin kara anu oo macnaha ma dhahay xanuunkan baa haysta laakiin labadan markaan u fiirsaday qaabka ay u hadlayaan iyo waxyaabaha ay ka hadlayaan way isku yar dhow yihiin macnaha wax walba way ka sameeyeen idima dhahayo laakiin labada qof waxyaabaha ay ka hadlayaan waa waxyaabo isku yara eeg haddaba aan u soo laabano dadka ku wareeray Illuminatiga iyo waxaan macnaha la Soomaaliya Illuminatiga jirta maxay baa jirta hal mar wax ma idin sheegaya horta Illuminatigu dad address la maaha oo macnaha dad la oran karo xagaas bay degan yihiin oo aan u tagi karnaa ama aan arki karnaa maaha oo waa secret adiguna ma ogaan kartid aniguna ma ogaan karo qaar badan oo kalena ma ogaan karaan kaliya waxa ogaan kara dadka la soo invite gareeyo oo waliba u badan dadka markoogii hore powerka haystay ee macnaha aha madaxtooyo ama aha boqorro ama aha dad lacag haysta tusaale ahaan oo kale imika Kanye West uu dhihi karaa Illuminati baa ila soo xiriiray sababtoo waa multi-billionaire billions buu haystaa Donald Trump uu dhihi karaa Nicki Minaj way dhihi kartaa macnaha dadkaas waa dad awood leh qof Illuminati ah oo ku imaanayo Illuminati baa ahay ku dhahaayana ma jiro haddii aad aragtid qof Soomaali ah oo macnaha calaamadii sameynayna ma sameynaayo aniga waa la soo qaadan doonaa laakiin waa fahmi Soomaali calaamada sameynayana ama hadal hayn buu xilliga u sameeyay ama hadda hadal hayn buu sameeynaya ee kama aha inuu meesha ku jiro ama uu ku lug leeyahay haddaba ina Swedish baa laga yaabaa Illuminati-gani maxay rabaan dadkan waxay rabaan inay adduunka oo dhan controlaan waxay rabaan in ay maskaxdaada controlaan waxay rabaan inay manipulation waxa la yiraahdo kugu sameeyaan soo haddaba marka qof walba Soomaaliya oo saan iska yar dhahaba inaan diin Illuminati buu kamid yahay qof Illuminati kamid ah oo gaajoonay ma jiro way diraysan dadkaasi lacag bay haystaan dadkaas waa la sacrifice gareeyaa waxba laga bedeshaa tusaale ahaan oo kale waxa laga yaabaa in lagu dhaho xiro dharka naago oo kale filimku madal hees ku qaado oo kale wala manipulate gareynaya moogta qofkaas laakiin
waxaa la siinayaa de wax ama caanimadiisa sii socota ama lacag sii helo waxbu ka faa'iidaya iyaguna waxbay ka faa'iidayaan moogtahay so ha iga dhaadhicinina ama ha ila iimaanina qof Soomaali oo gaajoonaya ayaa dadka ku jira